بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaanu hambalyo u direynaa dhammaan ciidanka booliska Soomaaliland jananadooda saraakiisha sare saraakiisha hoose saraakiil xigeenka dableyda alifleyaasha culweynaha iyo xaasaskoodaba waxaanu u direynaa 25 sano ay jireen hawlihii bugga iyo miisaanka lahayn qaranka u qabteen hambalyo waxa kale oo ku hambalyeynaa dhibaatada dhaawaca dhimashada ay u mareen inay nabadgelyo dalkooda hubiyaan aad iyo aad bay ummaduna idinku ogtahay ilaahayna idinka abaarsiin doonaa mar labaad hambalyo dhibta aad qaadateen iyo hawsha aad qabateen qarankaba booliska wuxuu soo maray taariikhdiisu waa dheer tahay ilaa intii dawladdu ka abuursay boolisku waa jiray marka dib loogu taariikheeyo booliska waxa la abuuray 1910kii waxaana laga abuuray rakuubleydii 26kiina waxa la abuuray taliska gudaha ciidamada oo dawladda Ingiriiska markaa isticmaalkaada ay abuurtay waxa markaa ku lamaanaa ilaaladii loo jiray ilaalada harweyn oo qabeelka dhex gali jirtay 1960kiina wuxuu la midoobay ciidankii Talyaanigu ka abuuray koonfurta taasoo hoos u dhac badan iyo safgarawaa badan dhexdooda ay ka jirtay ilaa markii dambe uu ku milmay 1900 iyo 1990 markii dalka la soo galay muddo ayuu ciidanku shaqeynayay taliyaal badan baa iska bedelisay la sheegay oo mid loo meel soo gaarsiiyay maanta wuxuu marayaa meel dalku uu ku faano ummaduna ay ku jeclaato oo uu nabadgelyadii qarankiisa hubiyay caalamkuna kuma jirta Soomaaliland inay meel degan tahay oo ciidan booliis iyo kala dambeyn jirto waxaynu haray inagoo inta soo maray haddana hawl badan baa u taala booliska iyo guud ahaan dawlad iyo shacab ahaanba waxaynu doonaynaa booliska inuu noqdo mid dadka saaxiib yihiin waxaynu higsanaynaa inuu noqdo booliska mid caruurtu markay aragto ay ku farxado waxaynu higsanaynaa oo ridoonaa inuu gaarsiino booliska inuu noqdo mid dadka taag daran ay ku soo hiishaan oo xaqiisa u soo cararaan oo aanay ka cararin waxaynu doonaynaa booliska inuu noqdo mid ka argagixiya oo ka hortaga dambiilaha iyo qofka fidmawalaha ah waxaynu doonaynaa inaan isbarro ummadeena oo soo martay marxalado adag oo dhib badan oo in badan ay booliska u haysato cadow ama ay ka baqdaanba waxaynu doonaynaa in cudurka meesha ka saaro taa waxa laga saari karaa tababarada badan iyo yoolka aynu doonaynaa inuu cadeyno waxaynu doonaynaa inanka booliska ay ka soo baxaan tababar inuu qabo fikirka ah ee dhalinyarada inuu dadka la saaxiib yahay marka مثلا uu qof ku qabto dambi waxa ugu yar wadada gaariga maraya markuu u sheegayo wuxuu ku qaldamay inuu ugu sheego sida waayeelka isagoo 20 jir oo tababarka soo baxay inaan maskaxda booliska markaa gaadhaan baan doonayna inuu qofka qaldamay qaladka u sheego inuu qofka jaahilka ee aan garanay sharciga ee ka aqoonta uu u sharxo isagoo miir qabo inuu qofka dambiilaha il dheer ku eega markuu qabanayana uu qabto sida libaax oo kale aan dambiilu dhaafay booliskana waxaanu ka tababarayna inuu ka duwaynaa inuu dadka oo dhan gacan cadow ku qabto dadka iyo booliska waxaanu waa halka aynu higsanayno dadweynaha waxaanu ka doonaynaa inay booliis wada noqdaan oo booliska la shaqeeyaan taana waxaynu ku haranaynaa inagoo labadaba wacyigelin xoog la siinaa dadka iyo booliskaba waxaan ugu mahadnaqayaa taliska booliisku inuu tababar joogto ah wado oo aynu ognahay in maalin walba tababarka la wado booliskana waxaynu ka rajaynaynaa inay tusaalaha qaataan qofka booliska sharcigu matala qofku waa inuu sharciga ku soo hiroobaa waa inuu baraa sharciga inuu qofku jeclaado isaga fariir sharci intaas waa yoolka aynu doonayno waa kaynu u gudanahay culweynaha booliska taanu ku codsana waa inay taamu jaari dadku ku matalaan dadweynahana waxaanu ka rabnaa inay booliska hiili hoob isla garab taagaan aad iyo aad baa isbedel loogu wadaa saldhigyada baarayaasha tababarka booliska laakiin waa hawl waqti qaadan doontaa taasi waa yoolka aynu uga jeedno maanta booliiskeenu inaga ayaa wadna qaranka cashuurtiisa ayuu ku shaqeeyaa waxaynu u mahadnaqaynaa saaxiibada Soomaaliland ee naga caawiya dhisidda booliiska ama ha noqoto guryaha iyo xafiisyada ama tababarada aad iyo aad baynu uga mahadnaqaynaa oo caawimo xoog leh naga siiya capacity building oo igu horreysay dawladda Ingiriiska ama UK aad iyo aad baynu uga mahadnaqaynaa iyo saaxiibada kale na caawiyaba inta waxaan ugu gudbayaa Soomaaliya iyo Soomaaliland waxay laba dal oo 60 midoobay maanta booliska oo 20 sano inagoo isku tashanay uu soo shaqeynaya
boliiska Soomaaliya oo ay adduunyada dhan lacag siisaa wali halka ma gaarin sababtuna waxay ku xiran tahay isku dadku markay wax goostaan ay wada socdaan shacab iyo dawlad ayaa meel la gaaraa maanta waxyaalaha dhacay maanta ee ugu badan ee aynu doonayno bulshada waxa ka mid ah colaadda beelaha walaalaha ee Soom boliiska iyo ciidamada door nadiif oo shariif oo muhiim ah ka qaateen hase yeeshee way nagu soo noqnoqotay maanta waxay soo wadayaa intii af Soomaali ku hadasho oo dhan waxaan soo dhaweynaynaa Soomaaliland baa loo martiyaa dawladda Soomaaliland iyo dalka Soomaaliland oo martiyo waxaan soo dhaweynaynaa qof kasta oo ama madax dhaqameeda ama culimo ah oo nabad iyo niyad sami iyo dadka nabadeeyo oo waxaan u sheegaynaa ciidamadeena waxaan ka digtoonaanaynaa cid kasta oo qaranimada Soomaaliland inay wax ku yeelayso ama khalkhal ku galaysa nabadda Soomaaliland arinta ugu soo dhuumanaysa ama ugu soo gabanaysa waxaanu aad uga mahadnaqaynaa dadka soo gurmaday madax dhaqameedka ee hawsha naga hawlgalaya Soomaaliland iyo dalkeeda la yimid iyo marti loo yahay iyo hogaaminta shirka qaban doonta haddii aan la ilaa labada maalmood soo socda waxa biixi doona wufuud fara badan oo hogaaminaya wasiirka dakhligu oo nabadgelyada u tagi doona oo madax dhaqameed leh oo guurti leh oo culimo leh inta waxaan uga dhaafayaa waxaanu aad iyo aad ugu haweynahay inay naga dhamaadaan laba mishkaladood oo ugu culus dambeeyay sanadka dhacay mid waxa keentay gaadiidka oo nagu batay wadada naga xumaatay aqoonta dawladda hooyar arinta waanu u taabshisanayna shacab iyo dawladba inaanu arinta adkayno oo dhimashada 110 sanad la buris ay naga dila gaadi way nagu culus tahay laba kulo dhaawacina way nagu culus yihiin xoolaha dhacayna waa ku dhacmayna waa arkaysaa waxaynu u baahanahay qaran ahaan iyadoo booliisku nagu hogaaminayo inaynu arinta talaabo adag ka qaado oo aynu yaran shirka dambiga labaad u badan waa dhalinyarada kooxaysiga ah iska hortimaada horta dhalinyarada kooxaysiga ah ee gaangistariski dalka taajirka ah ee lacagta badan iyo kuwa sawirka oo ku dhaca laakiin waxa lagu kula guuleystaa sida dadka loo wacyi geliyo waxaynu isugu tagi inay dhalinyarada intii suurtagal shaqo abuur doono oo aan hubo ninkii gaaraan dhawaan Soomaaliland inay noqon doonto meel soo shaqato riya ma aha waxaad eegtaan 30 sano u dambeeyay Soomaaliland talabada kale qaaday halkan xaradan saarkeeda shan sano ka hor ciidanka markaan u khudbadeynayay geed hoostii badankoodu tabada casa ama caagaysatay nin furaada haystay ku yara qoriyahana ku odaysatay banaanka way seexanayeen aniga Cabdidhibo baan kula hadlaynay waxaan u sheegnay in xirdan qurux badan doonto oo talis qurux badan iyo direys iyo garaadeen doontaan maanta way joogtaa barita waxa ku xigi doonta inta laabkeedu ka sii wanaagsanada markaynu qaran ahaan isku tashano midna waan xariiqaya gacantii baadeen ninna ma caawiso haday cid caawinaysa xamar bay caawin lahayd jimcada qurubaha ka dhaxaysa iyo caarku lacagtu ku shubaya xamar bay dhisi lahayd oo maanta ugu liidato ogtihiin in caasimadii shantii gobol saystaan iyo waxa ka taagan intaynu isku tashano intaynu gacan bini'aadam ka maarnay ciidamada ku dhismaya waxaan ku soo ururinayaa isku tashi weyn u baahanahay ciidanka bariiska iyo olkeena ka doonayna waa ka inuu noqdo qofka bariiska nin matala sheekha iyo madaxweynaha iyo wasiirka oo aadaab leh oo akhlaaq leh oo dadkiisa naxariis badan adiguna ku dhiiran qodobkaas aynu helayn baynu aad iyo aad u raadinaynaa dadweynuhuna ay u arkaan bariiska saaxiibkood qodobkaas aan isku taagaya waxaan ku soo gabagabeynayaa ciidanka bariiska hambaliyo qarankana hambaliyo hawl wacan iyo horsocod inuu ciidanka bariiska sii kordhiyo awoodiisa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.